waxaa magaalada muqdisho ka soconaya kulamo gaargaar ah oo ay wadaan madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira kaasoo ay la qaadanayaan madaxweynayaashii hore ee dalka soo maray gudoonada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya siyaasiyiin xildhibaano iyo ururada bulshada rayidka kulamadan ayaa intooda badan diiradda lagu saarayaa ka hadlida arrimaha doorashooyinka ee dalka iyo in laga fogaado wax waliba oo keeni kara muddo kordhin loo sameeyo hay'adaha dastuuriga ah ee dawladda waxaana kulamadaas u dambeeyay kulan uu maanta magaalada muqdisho kula qaatay Axmed Cabdi Kaariye madaxweynaha maamulka galmudug madaxda madasha xisbiga qaran iyo hogaamiyaha xisbiga wadajir kaasi oo looga hadlay xaaladda guud ee Soomaaliya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee sanadkan 2020 iyo waliba sanadka soo aadan 2021 iyo sidii loo dhameystiri lahaa heshiiskii hanaanka doorasho ee lagu gaaray shirkii Dhuusamareeb 3 madaxda maamulada dalka ka jira sida Koonfur Galbeed Soomaaliya, Puntland, Jubbaland, Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa lagu wadaa in maalinta beritaha kulan ay kula qaataan magaalada Muqdisho madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasi oo lagu dhameystirayo heshiiskii hore looga gaaray doorashada guud ee dalka ka dhici doonta iyo sidii ay ugu dhici lahayd waqtigeeda dadka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ayaa rajo wanaagsan ka qaba natiijada laga filan karo shirka madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulada dalka ka jira ay yeelanayaan iyagoo oo ku boorinaya in ay gaaraan is-afgarad ku hogaamin kara dalkan in si nabdoon doorashada ay ku dhacdo waxaana xusud mudan in xalay magaalada Muqdisho kulan kula qaatay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareena kulankan ay mas'uuliyiinta uga hadleen doorashada dhawaan la filayo in dalka ay ka dhacdo iyo sidii looga qayb qaadan karo iyada oo aanan jirin qalqan dhanka ammaanka ahi